Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno hirdanka ka dhexeeya labada mas-uul ee iyagu u tafaxayday inay hoggaanka u qabtaan xisbul xaakimka talada Somaliland haya ee kulmiye. Labadan mas-uul oo kala ah Maxamuud Xaashi Cabdi iyo Maxamed Kaahin Axmed ayaa haddaynu dib u jaleecno waqtigii ay dhasheen iyo waxbarashadoodii oo kooban. Waxa uu ku dhashay Maxamuud Xaashi sanadkii 1964 magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. waxaanu ku soo barbaaray magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco. Dugsigiisii hoose iyo kiisii dhexena waxa uu ku qaatay isla degmadaasi. Dugsigiisii sare waxa uu galay dugsiga loo yaqaanay Ferris July isla markaana maanta ah Jaamacadda Hargeysa. Maxamuud Xaashi 1984 ayuu dhameeyay waxbarashadiisii dugsiga sare. intaa wixii ka dambeysay taariikhdiisa haddaynu sii wadno 1991 Maxamuud Xaashi waxa uu noqday duqii ugu horreeyay ee waqtigii dubcurashada Somaliland noqda maayarka degmada Burco. Maxamuud Xaashi Cabdi 1993 ilaa 2004 waxa uu ka mid ahaa golihii wakiilada ee lagu soo xuli jiray nidaamka beelaha. Maxamuud Xaashi sidoo kale waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii xisbiga kulmiye oo uu sheegay inuu yahay qofka labaad marka laga reebo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Maxamuud Xaashi waxa uu la soo galay xisbiga kulmiye amaba uu kala soo shaqeeyay muddo dheer oo lagu qiyaasi karo inay kuba dhaweyd 10 sano oo mucaaradnimo adaga. waxaanu ahaa siyaasi hadal yaqaana isla markaasina dadaal badan oo ugu jiray xisbigaasi markaasi kaalin muhiima. Maxamuud Xaashi Cabdi markii uu guuleystay xisbiga kulmiye bishii Juun 2010 waxa uu Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo u magacaabay wasiirka duulistii hawada. shaqadaasi oo uu hayay ilaa 2015 bishii Noofembar. Maxamuud Xaashi inkastoo dhaliilo badan loo soo jeediyay haddana kaba dambaystii waa uu ka guuleystay waxaana lagu waayay wax cadayna. Maxamuud Xaashi bishii Noofembar 2015 waxa uu Maxamed Siilaanyo mar kale u cugtay inuu noqdo wasiirka madaxtooyada si uu kala wada howlaha qasriga madaxtooyada ee nidaamka qaranka. Maxamuud Xaashi ayaa imika iftiimiyey inuu u taagan yahay amaba u ordayo inuu noqdo gudoomiyaha majaraha u haya xisbul xaakimka kulmiye, balse waxa isaguna dhankiisa ka soo tafaxaytay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo isaga laftiisu ahaa siyaasi waqti dheer ku soo jiray siyaasadda. Maxamed Kaahin Axmed isaguna waxa uu ku dhashay magaalada Burco. waxa uu dugsiga hoose iyo kiisa dhexeba ku soo qaatay degmada Beer. 1970 dawladdii Maxamed Siyaad Barre waxa ay u dirtay akademiyadda dhanka ciidamada oo ku taalay dalkaasi Russia. magaalada la yiraahdo Lunde ayuu ka galay akademiga jaamacadda oo isla markaasina ka mid ahayd midowgii Sovieti ama USSR. Maxamed Kaahin Axmed intaa wixii ka dambeysay waxa uu ku biiray xisbigii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM. Maxamed Kaahin oo ahaa siyaasi markaasi ay tahay waxbarashadiisu dhanka militariga waxa uu muddo dheer uu ku soo shaqaynayay dhanka xirfadda militarinimada isla markaana waxa uu ahaa isaguna kulmiye u ahaa saraakiisha sarsare ee ka midka ah xisbul xaakimka kulmiye. haddaba haddaynu labadooda isbarbar dhigno maanta loolanka ka dhexeeya waxaynu odhan karnaa Maxamuud Xaashi waxa weeye siyaasi isagu aad u aftahana isla markaasina haysta taageero aad u ballaaran oo ilaa heer degmo iyo heer gobolba ah isla markaasina ku filiqsan dhammaan gobollada Somaliland. waa siyaasi kaga xidhan dhanka ganacsatada, dhalinyarada, culimada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Maxamuud Xaashi waxa uu leeyahay aqoon caalami ah oo markiisii hore uu ku bartay manhajka carabiga isla markaasina uu kaga soo baxay wadamo carbeed Islamic Studies waxa loo yaqaan oo ah culumta diinta Islaamka. waxa kale oo uu Ingiriiska ka galay jaamacad iyadana uu ka bartay kooraska amaba faculty-ga la yiraahdo leadership iyo hogaaminta. haddaba maanta haddaynu eegno kii maanta la odhan karo waxa uu ku habooyay inuu noqdo hoggaanka kulmiye markaynu eegno odoroska dadka ninba si ay la tahay, balse waxa la odhan karaa xagga taageerada Maxamuud Xaashi iyo Maxamed Kaahin waa mid u dhaxeeyo farqi aad u weyn. Maxamed Kaahin isagu waa uu ka duwan yahay waxaanu haystaa tiro aad u kooban oo taageerayaal isla markaasina aan ahayn dad multiple ama dad kala nooc ah oo ah dad u gaara jifadiisa khaaska ah.
waayo ma aha siyaasi had iyo jeer aftahana amaba aqoontiisu ay tahay heer caalami, waana siyaasi isticmaala oo qura oo ku shaqeeya optionka la yidhaahdo aan kuu lisee iyo hambe, taasi oo uu rag badan kula soo jilay filimka siyaasadda. haddaba maxamuud xaashi iyo maxamed kaahin maanta markaad eegto kubaddu way dhex taallaa, inkasta oo waxa qure maxamed kaahin uu isku hadlaynayaa ay tahay madaxweynihii uu soo lisay inuu maanta u hambeeyo, islamarkaasina uu sidiisii oo kale u muquuniyo murashaxiinta kale ee la hirdamaysa. haddaba iyadoon la saadaalin karin go'aanka madaxweyne muuse biixi, haddana waxaynu odhan karnaa maxamuud xaashi arrintiisu ma sahlana, maadaama uu gacanta ku hayo qoorweyntii beesha iyo dhammaan aqoon-yahankii reer somalilan, islamarkaasina taasi ay ku keentay duufaano ruxa dhammaan kulmiye iyo xukuumaddii talada haysay. waxaynu ogeyn haddaynu dub u eegno sidii uu ku yimi amaba dhaqankii kulmiye axmed siilaanyo 2015 bishii noofembar 10keedii inuu axmed siilaanyo wixii ka horreeyey doonayey inuu masrax xora u qabto siyaasiyiinta ay saaxiibka yihiin ee kulmiye, balse taasi ma suuro gelin kadib markii madaxweyne siilaanyo ay hafiyeen dabaylaha iyo taageerayaasha aan kala go'a lahayn ee dhallinyarta u badan ee uu watay markaas muuse biixi cabdi. taasi waxa ay duday hal mar fakarkii madaxweyne axmed siilaanyo, waxaanu go'aansaday inuu mar qura u janjeersado amaba u weexdo muuse biixi cabdi, islamarkaasina kuwii kale uu karkaarka wadaariyo. inkastoo dadka siyaasaddaas oo dorosa amaba dhaqanka siyaasadeed ee madaxweyne siilaanyo ay sheegeen inuu u doortay oo qura inuu yahay siyaasi aan ka daalin jaafaajiriqa siyaasadda ee ah ijiid aan ku jiidaya, islamarkaasina uu yahay ninka qura daalin kara saraakiisha iyo axsaabta mucaaradka ee iyagu isbahaystay. haddaynu intaa kaga soo gudubno, hadda waxaa jira shir dhex maraya beesha uu ka soo jeeda maxamuud xaashi iyo beelaha loo yaqaano garxajiska, kuwaasi oo u eg la doonayo in lagu ruxo isgiijinta madaxweyne muuse. taasina waa taharka u diiday, islamarkaasina uu mar kasta isaguna soo dedejisay inuu ku dhawaaqo guddoomiye ku-xigeenka xusbiga kulmiye wakhti aan saa usii fogeyn ee bisha juun oo la qaban doono shirka xusbiga kulmiye laguna dooran doono guddoomiyaha xusbigaasi. haddaba maxamuud xaashi marka aynu eegno waxa uu geystay duufaano siyaasadeed, islamarkaasina waxa uu dhinac walba ka kicinayaa duufaano aan innaba la xamili karin. taasina waxa ay ka go'daa laakiin madaxweyne muuse biixi sida uu hawshaasi u maareeyo iyo halka uu wax dhigo, maadaama madaxweyne muuse uu aad uga warwareegay inuu mar qura yidhaahdo waxaan ku wareejinayaa xusbiga cid gaar ah, islamarkaasina haddana dhanka kale waxay u muuqataa inaanu masraxiyad xora furi doonin si loo tartamo, oo taasi waxa uu u baqayaa saaxiibkiisa khaaska ah ee maxamed kaahin axmed in si hawl yar loo reebo. haddaynu waxaasoo dhan ka soo gudubno, haddaba dhanka markaad eegto afkaarta dadweynaha aanu ka soo ururinay xeerbeegti media, dadka qaar ayaa 76% dadku waxay qabaan inuu ku habboon yahay inuu noqdo guddoomiyaha xusbulxaakimka kulmiye siyaasi maxamuud xaashi cabdi, marka ay u eegaan xagga aqoonta, aftahanimada, dhallinyarada iyo cv-giisa siyaasadeed oo ah mid hufan. dadka ka soo hadhay tirada boqolleyda oo ah 24% waxa ay qabaan maxamed kaahin in haddii xusbiga loo dhiibo xusbigaasi uu noqon doono mid guriga ka hadaafay, islamarkaasina aan cid dambe anfici doonin. taasina kama farxinaysa madaxweyne muuse. haddaba maxamed kaahin axmed laftiisu inkastuu garwaaqsan yahay xusbiga inaan laba kornayl isaga dambayn karin, haddana waxa aanu rabin inuu marnaba arko in maxamuud xaashi noqday hormoodkii xusbiga kulmiye, taasna uu ku dabagalo oo waxa uu arkaa siyaasi isagu uu kaga xaq leeyahay. inkastoo awoodda badan ee maxamuud xaashi iyo duqaymaha siyaasadeed ee ku socda maxamed kaahin aanay ahayn kuwa lagu soo koobi karo